gobolka Catalonia marka aad maqashid waxa markaba kugu soo dhacaya naadiga Barcelona oo gobolka labaad ee ugu dhaqaalaha badan dalka Spain sidoo kalena leh goobaha ugu muhiimsan ee soo jiita dalxiisayaasha tirada badan ee booqda dalkan waxa xarun dhexe u ah magaalada qadiimiga ah ee Barcelona waxa ku nool wax ka badan 16% dadka reer Spain wuxuuna soo saaraa 20% dhaqaalaha soo gala dalkaasi tan iyo bilowga qarnigii hore gobolkan wuxuu jid dheer u maray sidii uu uga go'i lahaa Spain inteeda kale una noqon lahaa dal madax bannaan laakiin dhammaan isku dayadiisan waxay noqdeen kuwo aan miro dhalin oo dhicisooba muuqaalkeenna maanta ayaynu ku eegi doonaa sooyaalka gobolkan iyo riyada rumobila ee ay shacabkiisu ku doonayaan helidda madax bannaani magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina oo Abari Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta gobolka Catalonia waxa uu ku yaalaa waqooyi galbeed jasiirada weekaha Iberia ee dalka Spain badkiisu wuxuu gaarayaa 32,000 oo kiiloomitir oo isku weer ah waxaana ku nool dad ku dhow 8 milyan oo qof gobolkan ayaa hodan ku ah wax soo saarka beeraha warshadaha iyo dalxiiska waxa uu ka kooban yahay 4 magaalo oo kala ah Barcelona oo ah magaalada ugu weyn Tarragona Girona iyo Lleida wixii ka horeeyay qarnigii 16aad Catalonia waxay ahayd boqortooyo yar oo ka madax bannaan dhammaan xukunnadii ku hareereysnaa bilowgii qarnigii 16aad ayay Catalonia ku soo biirtay boqortooyada Spain waxaana lagu heshiiyey in ay noqoto gobol leh ismaamul u gooni ah oo ka madax bannaan maamulka tooska ah ee dawladda dhexe waxa uu waqtigaasi ahaa gobol hodan ah oo ka dhaqaale badan Spain inteeda kale sharcigaas ayaana lagu wada joogay ilaa laga soo gaaro bilowga dagaalkii koobaad ee dunida markaasi oo ay gobolka Catalonia ka soo ifbixeen kooxo doonayay in Catalonia ay dib ula laabato madax bannaanideeda balse isku daygaasi ma guulaysan sanadkii 1930 shacabka ayaa u codeeyay in meesha laga saaro nidaamkii boqortooyada dalkuna uu noqdo jamhuuriyad boqorkii Spain oo lagu magacaabi jiray Alfonso ayaa dalka laga musaafiriyay waxaana xukunka la wareegay koox jamhuuriyiin bidixda fog ah kadibna waxaa bilowday dagaal sokeeye oo u dhaxeeya kooxda xukunka la wareegtay iyo askar hanti wadaag ah oo iyaguna xukunka isla rabay oo uu hogaaminayay generaal la oran jiray Francis Franco maamulkii gobolka Catalonia ayaa taageero buuxda siiyey kooxdii jamhuuriga ahayd waxayna colaad u muujiyeen generaal Franco sanadkii 1938 kooxda generaal Franco waxay duulaan laba dhinac ah ku qaadeen magaalooyinka Madrid iyo Barcelona waxayna ku guuleysteen in ay kala jaraan isku socodka labada magaalo iyo isku gurmadka ciidanka dawladda ee kooxda jamhuuriga ugu dambeynna waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan caasimadda Spain markii uu xukunka qabsaday generaal Franco waxa uu meesha ka saaray dastuurkii awoodda ismaamulka gaar ahaaneed siinayay Catalonia wuxuuna mamnuucay wax kasta oo dhaqan ah oo la xiriiray dadka gobolkaasi degan sida luqadooda iyo maalmihii dhaqan ee ay lahaayeen gacan bir ah ayuuna ku qabtay Catalonia iyo guud ahaan Spain ilaa uu ka geeriyooday sanadkii 1975 kadib geerida Alfonso waxa Spain dib lagu soo celiyay nidaamkii boqortooyada ahaa gobolka Catalonia isagana waxa loo soo celiyay ismaamulkii u goonida ahaa waxa heshiiska lagu daray in dakhliga soo gala gobolkan 50% loo xawilo dawladda dhexe sidoo kalena waxa meesha laga saaray in ay ka go'idda Spain ay iyaga kaliya go'aamiyaan ogolaanshiyaha ugu dambeeyana laga heli karo baarlamaanka Spain oo kaliya dhammaan hawlaha kale ee maamul hoosaadna ismaamulka Catalonia loo dhaafo fursadan ayaa gobolkan siisay in uu noqdo mid ka mid ah goobaha ugu dhaqaalaha badan dalka Spain wuxuu xoogga saaray sidii uu u soo jiidan lahaa dalxiisayaal waxa uu sidoo kale gobolkan dhaqaale xooggan ka sameeyay wax soo saarka warshadeed oo uu horumar muuqda kaga tallaabsaday wuxuu soo saaraa 20% dhaqaalaha Spain sanadihii 2007 iyo 2008 waxaa dunida ka dhacay dhaqaale burbur xooggan oo saameeyay nidaamka maaliyadeed sida bangiyada caymiska iyo shirkadaha ka shaqeeya dhismaha guryaha goobaha uu sida daran u saameeyay waxaa ka mid ahaa dalka Spain dawladda Spain ayaa si ay dhaqaale badan u hesho waxay samaysay isku day ah in ay wax ka beddesho heshiiskii dhaqaale ee ka dhaxeeyay dawladda dhexe iyo gobolka Catalonia
maxkamadda sare ee Spain ayaa sannadkii 2010 go'aamisay in dhaqaale dheeri ah laga qaado Catalonia si loo kabo dakhliga dowladda dhexe. arrintan ayaa ka caraysiisay bulshada gobolkan, waxaana bilowday dibadbaxyo markii hore lagu diiday go'aanka maxkamadda, balse markii dambe isku beddelay kuwo lagu dalbanayo madax bannaanida Catalonia. dowladda Catalonia ayaa afti ka qaaday dadweynaha, waxayna 90% u codeeyeen inay ka go'aan Spain. xukuumadda dhexe ayaa aftida ku tilmaamtay sharci darro iyo inay baalmarsan tahay heshiiskii 1975 ee dastuurka wax looga beddelay. sannadkii 2017 ayuu baarlamaanka Catalonia ansixiyey aftidii dadweynaha, wuxuuna ku dhawaaqay madax bannaanida gobolkan. bannaanbaxyo rabshada wata ayaa gobolka ka dhacay. ugu dambaynna dowladda Spain oo arrintan aad uga carootay ayaa xoog ku soo faragelisay, waxayna ku dhawaaqday inay meesha ka saartay dhammaan xukuumaddii iyo baarlamaankii Catalonia. waxaa sidoo kale la baabi'iyey qodobadii dastuurka ee dhigayey xukunkana waxaa loo dhiibay koox dowladda dhexe taabacsan si meesha looga saaro abaabul kale iyo kacdoon dadweyne. hogaamiyeyaashii hore intoodii badan waxay u baxsadeen dalal kale, intii la qabtayna waxaa lagu xukumay xabsi dheer iyo ganaxyo aad u culus. tallaabooyinkan ayaa meesha ka saaray in uu mar kale soo noolaado damicii gooniyeysutaagga gobolka Catalonia.